hooyo ayaa wiilkeeda la dardaarantay waxayna kula dardaarantay saddex qodob saddexda waxay kow looga dhigay islaantii uu qabay waxayna ku tiri hooyo inta iga dambayso waxyaabo qatar ku keeni kara oo sir ah ha isku dayin inaad islaantaada u sheegto labo waxay siisay hooyadii wiilkeeda ha isku dayinay tiri weligaa inaad askari saaxiib la noqoto saddexna waxay uga dhigtay hooyo weligaa intaad iga dambaysid guri aad degan tahay in geed qodax leh aad ka hor abuurtid ha isku dayin wiilkii waxaa dhacday saddexdii qodob oo hooyadu ay siisay in uu tijaabiyay mid kastoo ka mid ah markii uu tijaabadii qaadana ay wax u soo baxeen bal wiilkii sida uu tijaabada u qaaday iyo sheekadii ayaan dhexgalaynaa haddaad ku cusubtaa meeshaan isku day inaad subscribe saaratid oo youtube-ka cabdullaahi colombo calaa kulli xaal wiilkii waxaa dhacday gurigii oo degay wuxuu ka hor abuuray geed qodax leh wuxuu saaxiib ka dhigtay askari qodobka saddexee waxa waaye gabadhii in atasir loo dhiibo sirtii ay bixiso waxaa dhacday wuxuu gowracay orgigii markuu gowracay wuxuu ku riday jawaan asaga iyo madaxiisii wixiisoo dhan iyo dhiiggiisii iswata wuxuu hoosgeliyey sariirtii ay deganaayeen asaga iyo naagtiisa wuxuu dhahay nin ayaan dilay marka waxaan kaa codsanaa abaayo sirtaaniisa kaa bixin waa in aad ilaalisid waxaa dhacday in muddo ahna ninka askariga oo wiilka u saaxiibka la ahay guriga ayuu imaa jiray gabadhuna way taqaanay gabadhii markii arrintii ku aragtay ninkeedii oo nin dilay u aragtay laakiin asaga wiilku wuxuu ka watay tijaabo waxaa dhacday waxay u wacday gabadhii askarigii waxayna ku tiri war walaalow ninkii nin buu dilay ninkiina isagoo meeyda wuxuu ku hoos jiraa sariirta sidaa daraaddeed waxaan rabnaa arrintii in hoos loo dhaqo iyadoo la ogeyn ninkan inaad qaadid ninkaygana barnaamijkaasu sameeyey inaadan dhihin ayaa lagaa rabaa markii intii u sheegtay hooyadii aaba hore u sheegto askari saaxiib ma gelin waxaa dhacday wiilkii inuu askarigii guriga asagoo jiifo u yimid oo xirxiray gardudub u xiray sidoo kale ninkii askariga ahay gabadhii arrintii u sheegtay ninku awalowsan dilin nin laakiin waxay ahaa orgigii jawaanka ugu jiray oo tijaabada uu ka rabay ayuu soo baxshay ninkii asagoo gardaduub u haya gurigii markuu ka soo baxshay geedkii oo guriga ka hor yaalay ee qodax lahaay ayaa lagu jiiday qodaxdii way muday waxaa la geeyey maxkamaddii markii la geeyey waxaa dhacday in asaga xabsigii la geliyo qaadigii maxkamadda hayay la hor keeno wuxuu dhahay aniga xabsiga yaan la igelin wuxuu dhahay aniga nin ma aana dilin waxa la xubsado oo Soomaalidu waxay dhahdaa hubsiina hal baa la siistaa inta aniga aan ligu degdegin waxa la hubsado waxa dhacday wiilkii wuxuu soo bandhigay hooyaday saddex ay igu tiri saddexna iska ilaali ay dhahay saddexdana waxay ahayd naagtaada sir ha u sheegin askarina hala saaxiibin gurigaaga hortiisana geed qodax leh ha ku abuurin marka wuxuu yiri hooyaday saddexdii qodob ay sheegtay waa run waana ku guuleystay inta dambo aan noolahana ma sameyn doono maxkamadiina wiilkii saasi ku fasaxday taas waxa kaaga cad haweenka inaan sir lagu aaminin tusaale waxa